Asalaamucalaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Daawadayaasha ku xiran channelkayga Doresa Jiyaa kusoo dhawaada. Maanta waxaan ka hadlayaa cudurka safmareenka ah ee loo yaqaano COVID-19. Sida aan wada ognahay waxaa dib ugu soo laba kacleeyay dalkeena Soomaaliya cudurka halista ah ee coronavirus ama COVID-19. Qaar ka mid ah bulshadeena ayaa aaminsaneen cudurka makaftamaha ah ee COVID-19 iyadoo si ba'an ugu dhamaadeen dadka ku nool guud ahaan dalkeena Soomaaliya, khaasatan caasimadda Muqdisho iyo daafaheeda. Waxaa marka ka dambeeya sii siyaadaysa dhimashada dadka u dhimanaya sababaha la xiriira COVID-19 iyadoona hakad uu ku yimid goobaha waxbarashada sida iskuulada iyo jaamacadaha, taasi oo la doonayo in lagu xakameeyo faafidda cudurka COVID-19. Dowladda, dhakhaatiirta iyo culimada ayaa ugu baaqay bulshadeena in ay ka feejignaadaan halista cudurka safmareenka ah isla markaana ay ugu wacyigeliyeen in ay xirtaan face mask. Walow dadka badankooda aysan aaminsaneyn xirashada face mask ama afsaarka in wax farqi ah u dhaxaynin in la xirto iyo in aan la xiranin face mask ama afdaboolka, laakiin dadka ayaa ogeyn in faa'iidada face mask ama afsaarka uu u leeyahay ay tahay in waxyaabaha ilma aragtida ah uu ka celiyo ama uu ka difaaco. Tusaale ahaan sida timaha yaryar ee ku yaala dulka sanka ay u celiyaan busta iyo waxyaabaha kale ee ilma aragtida ah. Sidaa daraaddeed face maskuna waa si la mid ah, wuxuu celiyaa waxyaabaha aadan arkin ama ilma aragtida ah. Sidaa daraaddeed waa in aad xirataa face mask oo badbaadi naftaada iyo tan ummadda Soomaaliyeed. Haddii aad isku aragto astaamaha COVID-19, waxaa laga doonayaa in aad la xiriirto isbitaalada lagula tacaalo dadka u ildaran ama u nugul COVID-19.